Tilmaam Academy. Bismillahi rahmaani rahiim. Kusoo dhawaada koorskeena imtixaanaha ahaa ee English Vocabulary in Use levelkiisii ahaa elementary level oo ah levelkii ugu hooseeyay. Maanta insha Allah waxaan arki doonaa Unit 5. Unit 5 waxaan uga hadli doonaa ereyo la xiriira describing people. Qof markii aan rabno inaan tilmaam ka bixino in qof aan sifeeno marka aan rabno sidee u sheegi karnaa. Let's say qof aan rabno inaan dhahno qofkan waa qof da'diisa dhexdhexaad ay tahay, aad u dheer, gaaban, qurxoon wejigiisa, waxyaabo noocaas oo kale ah, timihiisa noocaas yihiin, sharp leh, gar weyn leh, iyo waxyaabo noocaas timihiisa ay gaaban yihiin, muuqaalkiisa soo jiidasho leeyahay, iyo waxyaabo noocaas oo kale ah. Bal aan soo fiirino mid marka. Waxaan ku bilaabi doonaa section 1, section A, height and weight. Dhererka iyo qofka culeyskiisa se u sheegi karnaa. Qofkaani aad mu u dheer yahay, ma gaaban yahay, culeyskiisana sheegi doonaa. Qofkaan qof caato ah miya, qof dhexdhexaad ah miya, qof oo buuran miya. Bal hal mar aan isla fiirina meeshaas. A. Height and weight. Bettina Schwenker is a very tall woman. Tom Jakes is quite short. If you aren't tall or short, you are of medium height. Agatha Sanchez is really slim. I was very thin when I was in hospital. The doctor said I am overweight. Their cat is very fat. It needs to go on a diet. Alright, marka ereyas aan isla fiirino. Bettina waa gabadhan waay, is very tall woman. Marka ninkan loo fiiriyo, she is very tall woman. Aad ay u dheer tahay. Tom Jakes waa ninka ku xiga, is quite short. Xoogaa uu gaaban yahay ninkan. Ninkan gabadhan loo fiirin doonaa markaas. If you aren't tall or short, qofka duusan aad u dheereen, aadna uusan u gaabneen, you are of medium height. Dhexdhexaad ayaa tahay markaas. Waxaad dhihi kartaa I am not tall, I am not short, I am a medium height. Aad dhihi kartaa aniga dhererkayga dhexdhexaad aan iska dhihi kartaa marka qaar. Maybe 1.7 oo kale, 1 meter and 7 feet oo kale qofka markuu yahay oo kale. Okay, Agatha Sanchez, gabadhan daa fiirisid, is really slim. Slim waxaa loo yaqaana qofka markuu caato u yahay, oo weliba u yahay very attractive, soo jiidasho leh, dadka ay jecel yihiin. I was very thin when I was in hospital. Marka isbitaalkan ku jiray, I was very thin. Caato ayaan ahay. Caatadan waxaa waaye qaliir ayaan ahay waaye, skinny, lafo ayaan ahay waaye. Aad looma jecla. Slim is more polite than thin. Qofka markaa amaanaysa waxaa dhahaysaa, wow, that girl, she's slim waaye. Oh, that guy or that man, he's slim waaye. Laakiin haddii oo dhahid thin waaye, it means waa caato aan la jeclaysan waa markaas. So midda la jecel yahay slim waa markaas. The doctor said I am overweight. Dhakhtarka wuxuu dhahay I am overweight. Qofka overweight waxaa la qofka culeyska markuu ka badbato. Weight too much, culeyskaada zaid ah. Let's say dhererkaada 1.6 ah, culeyskaada 100 iyo wuxuu gaaray 30 kilo. It means you are overweight. Atahay overweight. Weightkaada ayaa zaid noqday, overweight. Their cat is very fat. Yaanyurtooda waxay noqotay very fat ay noqotay, aad ayay shul u noqotay. It needs to go on a diet. Waa in ay diet gashaa. Diet waxaa waaye in laga controlo cuntada, waxyaabaa zaidka culeyska ku badin kara in laga yareeyo waaye. Qofka wuxuu dhihi karaa I am on a diet. Maalmahan diet aan ku jiraa. Hilibaa u keentay, bariisa u keentay, cabitaan sokorla u keentay, wuxuu ku dhihi karaa oh sorry, I am on a diet. Aniga diet aan ku jiraa maalmahan. Alright, marka muhiim waa ereyadan oo ku jiro boldiga: tall, short, medium height, slim, thin. Labadaas oo isla fahanay. Slim caato la jecel yahay waaye. Thin ananin lafa waaye, skinny. Okay, overweight
qofkan waa plus size no sometimes plus size qofkan zaid u weyn yahay shuluq zaid waay fat okay shuluq okay face and head aan isla fiirino markaan face and head qaybtan wejiga iyo madaxa ayaan rabnaa inaan wax ka sheegno tusaale waxaan dhihi doonaa wejigiisa wuu qurxoon yahay wuu xun yahay timihiisa waa dheer yihiin way gaaban yihiin shaarib uu leeyahay gar uu leeyahay bal hama iligaas kuwaas B. Face and head. Suri has dark skin and dark hair. She has brown eyes. Polly has blonde or fair hair and fair skin. She has blue eyes. Ben has a beard and long hair. He has green eyes. Luca has a moustache and short hair. You can also use has got. For example, Suri has got dark hair and dark skin. My mother is a very beautiful woman. My dad's a very good-looking man. all right My sister is pretty. Bob's an ugly man. I'm not ugly or beautiful. I'm just average looking. I'm just average looking bal marka hore waxaan ku bilaabi doonaa afartan qof ayaan rabnaa in mid mid aan u sheegno waxaan ku hormari doonaa Suri bal qoraalka inta ku yaala fiiri Suri has a dark skin ayay leedahay korkeeda ayaa madow macnaha dark skin okay and dark hair timaheedana madow waaye she has brown eyes indhaheedana waa brown eyes leedahay dhaxda isha brown eyes like maybe in a type of African in a laga yaaba Polly has blonde hair Polly watana blonde hair timaha waxaa loo yaqaanaa dahabiga dad waxaa jira u dhashay timaha noocaas oo kale ah wadamada qaarkood so Polly gabadhan has blonde hair fair hair no loo yaqaanaa and fair skin korkeedana waa jirkeedana wuu furan yahay waxoogaa way caddahay she has blue eyes indhaheedana blue eyes waaye dadka Europeanka ah they have got blue eyes indhahooda waa blue eyes indhaha mukulaasha oo kale yaayurta oo kale Ben ninkana ka sheekeyn doonaa has a beard gar ayuu leeyahay beard and long hair timo dhaadheerna uu leeyahay he has green eyes indhihiisana way cagaaran yihiin indha cagaar ayuu leeyahay Luca ninkaan kusoo gabagabayn doonaa Luca has a mustache sharp ayuu leeyahay mustache ayuu leeyahay and short hair timihiisana waxoogaa way gaaban yihiin and short hair timo gaaban uu leeyahay you can also use has got ma isticmaali karnaa dhammaantood waxaan dhihi karnaa Luca has got a mustache Ben has got a beard and has got a long hair Suri has got a dark hair and also she has got a dark skin you see marka erayaas dhan waa u isticmaali kartaa caadi my mother is a very beautiful woman maxaa ka wadnaa means she is very pretty aad ay u qurxoon tahay my mother is a very beautiful woman my mother is a pretty woman adii kartaa hadaa rabtid pretty my dad is very good looking man my dad is a very good looking man aabeena aad ayuu u qurxoon yahay quruxda ragga ayaa waxaa loo isticmaalaa good looking ninka markuu aad u qurxoon yahay ma dhihi kartid my father is a beautiful man ma dhihi kartid in English waxaas kale waa qalad beautiful waxaa loo isticmaalaa dumarka waxaa dhihi kartaa my sister is a beautiful my wife is a beautiful
You see, his sister, she's very beautiful. هذا واي. لكن ويل أشياء قربت عليك تا my brother is a very good looking. My father is a very good looking. I think ina fahmay la tantas. Common mistakes. People are tall. dadka marka la sheegayo tall waxaa loo isticmaali doonaa high ma la dhihi doonaa dhismahoo kale see la dhihi karaa ii sheeg this building is very high waxaasaa dhihi karta caadi waaye this tree is very high waxyaabahaas oo kale people marka people are tall not people are high ma dhihi kartid people have blonder or dark hair not hairs ma dhihi kartid hairs casharka horaan kusoo aragnay hair always inay tahay singular casharka horaan kusoo aragnay daxastaan casharkii hore oo aan kusoo baranay parts of the body hair always singular aan iska dhihi jirnay okay my sister is pretty walaashay way qurxoon tahay usually girls women only dumarka bis ayaa lagu talagalay pretty Bob is an ugly man ugly kasoo horjeedka quruxda waaye qofka ma qurxoon marka la hayo the opposite of beautiful or good looking fool xun yaa laga wadaa waxaa dhihi kartaa Bob is an ugly man okay I am not ugly or beautiful aniga ma qurxooni mana fool xumi I am just average looking aniga qof waxaan iska dhexdhexaad iska saas camal if you are not beautiful if you are not ugly haddii aadan qurux ahayn oo soo aad la yaabayaan fool xumo zaa'idna aadan ahayn that means you are an average looking qof caadi iska tahay wadadiis iska mari kara macnaha okay muhiim waa markaas okay section C ayaan fiirin doonaa markaan section C waxaan ku arki doonaa age da'da qofka see loo sheegaa qofkan da'diisa dhexdhexaad waaye dhalinyaro waaye waa yeel waaye see loo sheegi karaa markaa bal haban ila dhegeysta marka hore C. Age. My grandmother is 97. She's very old. My sister is 14. She's young, but would like to be older. My father is 56. He's middle-aged, but would like to be younger. This hospital is for elderly people, more polite than old. all right my grandmother is 97 she's a very old qofka du 97 jiro that means very old qofkaas okay my sister is 14 walaashan maxay jirtaa 14 ay jirtaa she's young dhalinyaro way dhalinyartaa but would like to be older maadaama aad u yartahay waxay jeclaan lahayd inay weynaato but would like to be older inay weynaato ay jeclaan lahayd my father is 56 aabbahen wuxuu jiraa 56 he is middle aged waa dhexaad weli doqonnimo ma gaarin meel dhex ayuu joogaa but would like to be younger like wuxuu iska jeclaan lahaa inuu iska yaraado younger inuu xogaa si waqti yar la siiyo this hospital is for elderly people isbitaalkan waxaa loogu talagalay dadka xogaha waayeelada more polite than old xogaha lama jeclo old people lama jeclo isbitaalkan waxaa loogu talagalay dadka duqyaasha ama dhegeysid dadka xogaha cuslaaday dadka xogaha waayeelada ah ereygaas kale xogaha afku u fiican yahay qofkan waayeel waayo adhigi kartaa laakiin qofkan duq waayo ma dhegeysid afka sidaas ugu fiicnaan af Soomaaliga oo kale Englishka asagana uma fiicno polite ma ahan waxaa laga wadaa erey asluubeysan ma ahan afkan uma fiicno marka waxaa dhihi kartaa isbitaalkan waxaa lagu talagalay dadka xoogaa waayeelada dadka duqyaasha ma dhegeysid this hospital is for elderly people not old people ma dhihi karta markaas haddaan dul marno hal mar old waa fahnay young opposite isku yihiin older waa isla fahnay inuu weynaado jecel yahay qofkan gabadhan waxay jeceshahay yariista ane maybe adagana wuxuu jecel yahay inuu noqdo younger in xoogaa soo yaraado okay expressions
sidee qof loo weydiin karaa da'diisa iyo dhirarkiisa iyo muuqaalkiisa qof soo weydiin karnaa bal expressionka sama ila fiiriya bal D. Expressions. How tall is Bettina? She's 1.85 meters tall. How tall is Tom? He's 1.48 meters tall. How heavy are you? I weigh 62 kilos. How much do you weigh? I weigh 74 kilos. How old is he? He's 84. What does Gemma look like? She's tall and dark. What does your sister look like? She's very pretty. alright bal aan fiirno bal sidee qof u weydiin kartaa su-aalahan how tall is Bettina gabadha laho dhirirkeeda intuu la egyahay so waxaa dhihi kartaa markaas she is 1.85 meters tall means 1 meter iyo 85 ay gaaraysaa it means qof aad u dheer waaye how tall is Tom ninkaas Tom la dhirirkiisa intuu la egyahay he is 1.48 meters tall asin dhirirkiisa waa 1.48 qof xoogaa gaaban waaye how heavy are you culeyskaada intuu la egyahay culeyskaada I weigh 62 kilos aniga culeyskayga waa 62 kilos how much do you weigh saan dhihi kartaa how much do you weigh culeyskaaga bal intuu la egyahay qiyaastiisa I weigh 74 kilos etc qof kasta marka culeyskiisa ku xiran tahay haddii aan ku dhaho how heavy are you intee culeyskaada la egyahay sometimes waxaa dhihi kartaa I weigh 60 kilos aniga 60 kilo ayaan dhihi kartaa mararka qaar it depends waxa aad ku xiran tahay how old is he qof aan rabaa inaan ku weydiiyo oo wiil ah waxaan ku dhihi karaa how old is he meeqa jir waaye haddii gabartan waxaa dhihi kartaa how old is she meeqa jir waaye ayada kadib waxaa dhihi kartaa he is 84 she is 86 and so on what does Gemma look like qofkaas suu egyahay qofaa iga sheekaysay she is tall and dark waxaa dhahday waa qof tall ah dheer and dark oo haddana madow xoogaa yar what does your sister look like sidee u egtahay walaasha what does your sister look like walaasha sidee u egtahay waxaa dhahaysaa she is very pretty aad ay u qurxoon tahay and so on marka ereyada muhiim waaye waa ku bedelan kartaa marka adiga baahidaada fiiri erey adiga munaasabku waa ku bedela markaas qofaa sheekaysteen waxaa dhahday do you have brothers and sisters then qofka wuxuu ku dhahay yes I have one brother and one sister so waxaa dhihi kartaa marka suu egyahay markaas what does your sister look like walaasha soo eg tahay then ereyada abarta ku sheegi kartaa dhigtaa she is very tall and she has got a long hair and so on anu sheegi kartaa tip ereyada qaar lagu sheegayaa waxa lagu leeyahay ku kadsoomin some of the words on this page are little negative ereyada qaar chapterka aan ku baranay negative way ma fiicno so be careful how you use them sida u isticmaalaysa iska fiiri it's better not to say to someone ereyada qaar ma ku fiicno qof inaad dhahdid you are fat qof ma dhihi kartid ceeb waaye ereyadaasoo kale waa laga dagaalamaa you are thin ereyadana sidoo kale qof lama dhihi karo adiga qalliiraa tahay lafalafaa tahay ma dhihishid you are ugly qof ma fiicna dhahdid adiga waa fool xun tahay ma dhihi kartid you are old qof duq ah oo waxaa aragtay 100 sano jiro ma dhihi kartid you are old dhammaantood laakiin erey English waay laakiin it's not polite ma asluubeysno marka you have to be careful erey iska fiiri qof shulqa aragtay waxaas dhahday ku practice Englishkaada oh you are fat adahday wow qofkaas forku tuurnaya wuuna ka xanaaqaya markaas that's the end chapter 5 ama unit 5 meeshan ku joojin doona insha Allah marka
chapterka inaad fahantay si aad u xaqiijisid waa inaad ka shaqeysaa exercise-ka ku xiga pagekan ka shaqeey exercise aad u fara badan ku jiro dhammaantood la xiriira describing people qof sida loo tilmaamo dhirirkiisa da'diisa muuqaalkiisa culayskiisa dhirirkiisa iyo waxyaabahaas oo kale waxaa inoo balan insha allah adika ka shaqeyseen iyo next chapter insha allah chapter 6